السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا سوماليات ملك استاجوبتان وانيغو معلن شريف فيديو كان وحو كوبان yahay saddex qaybood oo muhiim ah. qaybta koobaad waxaan ku eegaynaa warar maalmahan baraha bulshada la isla dhex marayo oo sheegaya in maadooyinka relationship education iyo relationship sex education aan la baraynin carruurta sanadkan. qaybta labaad waxaan ku eegaynaa warar kale oo sheegaya in canugaaga laga kaxaysan karo iskoolka lana haysan karo 14 maalmood ayadoo aan lagu wargelin ayadoo lagu marmarsiyoonayo coronavirus ayaan ka baaraynaa. qaybta saddexaad waa tala bixin ku saabsan sidii aad iskaga hubin lahayd wararka aad ka hesho ilaha kala gedisan. ugu horeyn waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagtaan videogan dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, qaasatan kuwooda ku nool waddankan Ingiriiska, si ay uga yaraato walwalka iyo walbahaarka ay ku abuurtay wararkan la isla dhex marayo baraha bulshada. waa maxay Coronavirus Act 2020? waa sharci ku meel gaar ah oo loo sameeyay sidii lagula tacaali lahaa cudurka coronavirus. waxaa la sameeyay 25 Maaj 2020. waa waqti cudurkan uu cusbaa. waa 5 maalmood ka bacdi markii la xiray iskoolada. waa waqti dukaamadu ay marnaayeen. waa waqti cabsi badan ay jirtay. waa waqti adduunka oo dhan uu ahaa isku dhexyaac. waa waqti dowladdu ay ka laabanaysay warkii ay sheegtay doraad, sababtoo ah cid garanaysa ma aysan jirin coronavirus. 25 Maaj waxaa lagu jiray lockdown oo sababaha bannaanka aad ku aadi karto waxay ahayd oo kaliya inaad cunto soo gadanayso. sharcigan xilligaas ayaa la sameeyay, waxaana loogu talagalay in lagu xakameeyo isku gudbinta cudurkan. sharcigan wuxuu awood u siinayaa public health officer-ka ama sarkaalka caafimaadka ee bulshada iyo booliiska inay ka dalban karaan qofkii ay uga shakiyaan inuu qabo cudurka inuu tago xarumaha baaritaanka si looga baaro cudurka. haddii uu tagi waayo waxay awood u leeyihiin inay qasab ku geeyaan. wuxuu kale awood u leeyihiin inay u sheegaan inuu guriga isku karantiilo 14 maalmood. hadduu saas sameey waayo waa la xirayaa, meesha ayaa lagu heenaya. public health officer-ka wuxuu ka codsan karaa qofka inuusan tegin meelo gaar ah sida dukaamada iyo meelaha dadka ay ku kulmaan. sharcigan qaybtiisa qusaysa carruurta wuxuu leeyahay haddii canuga aysan wehelin dadka mas'uulka ka ah, badalkooda waxaa mas'uul ahaan loo qaadan karaa social worker-ka, qof qaraabada ah iyo foster care-ka si looga baaro canuga cudurka COVID-19 loona karantiilo haddii laga helo cudurka. waa meesha sida xun loo fasirtay oo horaantii bishan Agoosto 2020 waxaa soo baxay fiidiyoyo iyo codad la soo duubay oo sheegaya in carruurta laga kaxaysan karo iskoolka ayadoon loo sheegin waalidka lana haysan karo 14 maalmood. wararkan kuturkutaanka ah waxaa ka war helay hay'ad ka madax bannaan dowladda oo la yiraahdo The Children's Commissioner for England. hay'adan waxay weydiisatay dowladda inay soo cadeyso warkan. dowladduna way ka soo jawaabtay. website-kan waxaa iska leh Children's Commissioner. warbixintan halkan ku qoran waxaa la daabacay 26 Maaj 2020, hal maalin ka bacdi markii la soo saaray sharciga Coronavirus Act 2020. halkan waxaa ka arkaysaa waxay ku leeyihiin akhri update-ka aan soo saarnay 12 Agoosto, 3 maalin ka hor maanta. waan taabanayaa. waxay leeyihiin 9 Agoosto waxaan ka war helnay warbixino lagu soo gudbiyay baraha bulshada. kabacdi dowladda ayaan warqad u dirnay. dowladda way inoo soo jawaabeen oo waxayna yiraahdeen run ma aha wararka sheegaya in public health officer-ka uu awood u leeyahay inuu qaato carruurta ayadoo waalidka aan laga haysan fasax. warqadan waxaa soo saaray dowladda. waxay leeyihiin sinaba macquul kuma ahan, sinaba dowladda kumay weydiisan in carruur la qaadan karo, la soo baari karo waalidkiis oo aan joogin.
halkan waa website-kii dowladda sharcigaana waa sharcigii coronavirus actiga lagu sheegayo waa arkaysaa halkaas waa arkaysaa section schedule 21 coronavirus act 2020 waad arkaysaa halkaas hoosaan u daadegno qaybta caruurta qusaysa kuma qorna halkan meelna kuma qorna in caruurtaada la qaadan karo qof parental responsibility hadduusan joogin waa meesha qaladka loo turjuntay waa halkan haddii uusan joogin qof parental responsibility haysta waxaa la tixgelin karaa qof kale sida social worker local authority key worker qof qaraabada ah iyo foster care marna kuma qorna macallin ama head teacher ha ahaado ama macallin ahaado ama qof kale ha ahaado halkan foster care parental responsibility waa haysan karaa ciyaalka qaarkood waxay la nool yihiin foster care caruurta qaarkood waxay la nool yihiin qaraabadood caruurta qaarkood social worker ka leh kuwa key worker ka leh kuwa qaraabadood la nool kuwa foster care ka la nool dhammaantood dadkan waxay leeyihiin parental responsibility laakiin halkan kuma qorna caruur waalidkooda inta laga qaato isbitaal la geeyo la baarayo haddii la rabana 24 maalmood la haysanayo halkan kuma qorno waatana halkan dowladda markii la weydiiyey inay kasoo jawaabeen warbixintan haddaa aragto quotation haddaa aragto calaamadan haddaa aragto quotationka macnaheedu waxa ay warkii aan la turjumin oo aan waxba lagu darin oo sidii qofka dowladda u sheegtay waayo marka waa ujeedaa dowladdu waa taas hadalkooda waa cadi warkan waa been waa fake news waa taas hadda dowladda run ma aha in public health officer-ka uu awood u leeyahay inuu caruurtaada qaato waa taas ku qoran war si xun loo fasirtay ama ujeedo gaar laga leeyahay ahaa marka hawalwalin isdaji ciyaalkaaga cid kaa qaadan karto xaq u leh male sidoo kale wararka sheegaya in maadooyinka relationship education iyo relationship and sex education aan la baraynin sanadkan waa been website-kan waa website-ka dowladda waa kan halkan ayay ku qoran tahay oo la leeyahay September laga bilaabo waa in la baro dhammaan ardayda dhigata dugsiga hoose iyo kuwa dhigta dugsiga sare website-kan waxaa update lagu sameeyay 9kii July 2020 marka warka sheegaya in maadadan RE-ga iyo midda RSE-ga aan la baraynin ardayda sanadkan iyaduna waa been oo waa fake news waayahan dambe waxaa soo baxay eray cusub oo la yiraahdo fake news waa maxay fake news fake news waa war been abuur ah oo loogu talagalay bulshada inay aaminaan war been ah si ay u booqdaan website ama ay u gataan alaab fake news wuxuu kaloo noqon karaa war qayb run ah ay ku jirto laakiin in badan oo been ah lagu daray amaba war si khaldan loo fasirtay ujeedaduna ay tahay qofka in laga dhaadhiciyo si uu u rabaysto fikrad qaas ah ama waxyaabo qaldan fake news waxaa faafin kara qof ujeedo qaasa ka leh ama qof ay u geysay faham darro sidaad ku hubin kartaa warka aad akhrinayso inuu run yahay iyo in kale isweydii maxaa loo qoray warkan ma wuxuu iga dhaadhicinayaa fikrad qaasa mise wuxuu iga codsanayaa inaan linki taabto ama aan comment sameeyo hubi isha warka uu kaaga imaanayo qofka soo gudbinaya ma la garanayaa magac ma leeyahay qofka wax uu ka hadlaayo aqoon ma u leeyahay qofka hadal ceenkee ayuu ku hadlayaa hadal xirfadle miyuu ku hadlayaa mase hadal suuq eeg yaa kale oo soo gudbinaya warkan ma wuxuu ku kooban yahay shakhsigan oo qura mase ilo kale ayaa jira caddeemo ma ku lifaaqan yihiin warka aad akhrinayso mise waa fikrad shakhsiyadeed ha rumaysan masawiro gebi ahaanba adoon hubin sababtoo ah masawirada qaabkii la doono ayaa loo samayn karaa ayadoo la adeegsanayo software waxaad isticmaali kartaa Google reverse image search si aad u hubiso halka uu ka yimid masawirka markiisii hore ugu dambeyn haddii warku uu yahay mid maskaxdaada ka weyn ama ay adag tahay inaad rumaysato wuxuu u badan yahay inay been tahay fake news waxaa loogu talagalay in lagu faafiyo fikrado qaasa oo dana qaasa laga leeyahay
taas oo lagu abuurayo rajooyin cusub ama argagax iyo cabsi. fadlan la wadaag walaalaha kale si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. commentina saar oo nala wadaag fikradaada. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.